Argentina iyo Messi ayaa markii ugu horeysay sharxaad dheer ah ka bixiyay sababtii uu diiday dib ugu laabto kooxdiisa Blaugrana oo si weyn la xiriirinayay. Lionel Messi ayaa sidoo kale iska diiday inuu tago waddanka Sacuudiga uu dalabyo waaweyn ka haystay waxuuna doorbiday kooxda David Beckham ee Inter Miami. Taageerayaasha Barcelona ayaa waxa ay lama filan ku noqotay xidiga ayaa magaciisa ku heysay xiriireedka uu idilay in dhabar ah markaasi jab ah uu ku ridaya. wargeyska Sport iyo Mundo Deportivo ayaa la xiriirinayay Lionel Messi weydiiyay sababa marka ugu tagay Barcelona oo si cad ugu sheegtay in doonayso wuxuu ka jawaabay waxaan maqlay in Barcelona ay ku qasbantahay in ciyaartooy iibiso ama hoos u dhigaan mushaaraadka ciyaartooyda anigu ma doonayo in ay arintaasi dhacdo in daraade ciyaartooy mushaarkooda looga yareeyo ama ba ciyaartooy loo xaraasho inkastoo aanan xataa maqlay in horyaalka liiga uu aqbalay wax kasta wax walbaana ay fiican yihiin hadii aan ku rabtan Barcelona haddana way loo xajira waxyaabo kale oo aan dhici kareyn anigu waan doonay inaan ku laabto aad ayaan ugu farxi lahaa hadii aan awood lahayn inaan ku laabto balse in aan sidoo kale ma doonayo buu yiri in markale ay dhacdo xaaladii aan hore uga tagay kooxda sida daraadeed kuma laaban doono Barcelona waxaana ku biiri doono Inter Miami mar labaadii sababta uu ku doortay Inter Miami ayaa wuxuu ku jawaabay kadib markii aan ku guuleysay koobka adduunka iyo in aan awoodeyn inaan tago baaz waxay noqotay inaan tago Mareykanka si aan ugu noolaado kubadda qaabkeedu ka duwan yahay in badan aan waqtigayga raaxaysto runtii mas'uuliyadu waa isla sidii hore waxaan doonayaa inaan mar walba ku guuleyso wax walba waqtigan Inter Miami ayaa kooxda ugu hooseysay naadiyada Easy Conference ee waddanka Mareykanka waxayna haysataa 15 dhibcood halka guud ahaan liiska kooxaha Mareykanka ay kaga jiraan kaalinta 27aad waxaana kaliya ka hooseeya kooxda lagu magacaabo Colorado Rapids iyo waliba LA Galaxy